halkani waa EBC News. Daawadayaal ku soo dhawaada warka maanta. Taariikhdu waa 3 bisha May 2025 waa maalin Jimcaha. Qodobada wararka Soomaalidana waxaa kamid ah. Wargeyska caanka ee loo yaqaan The Guardian ayaa maanta daabacay wareysi dheer oo uu ka qaaday madaxweynaha Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro. wareysigaas oo lagu qaaday madaxtooyada dhexdeeda. weli wararka Somaliland ayaynu ku jirnay waxa madaxweynaha Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro uu booqasho ku jooga dalka Kenya magaalada Nairobi. waxa maanta uu soo booqday baarlamaanka dalkaasi Kenya. waxa uu halkaas kula kulmay gudoomiyaha baarlamaanka dalka Kenya Mudane Moses Masika. Waatay daawadayaal qodobadaas ayaynu ku faaqidi doonaa warkayna maanta daawasho wanaagsan. Shirkadda caanka ee loo yaqaan The Guardian ayaa wareysi dheer la yeelatay madaxweynaha Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro. wareysigan waxaa qaaday wariye ka tirsan shirkadda The Guardian oo magaciisa la yiraahdo Mark Townsend. waxa uu kaga qaaday xafiiska madaxtooyada Somaliland. wareysigan oo arrimo badan uu kaga hadlay madaxweynuhu Cirro waxa uu sheegay in Somaliland ay tahay dal xor ah isla markaana ay xorriyadeeda kala soo noqday dalka Soomaaliya la oran jiray 40 sano ka hor. iminkana ay tahay xilligii ay caalamku aqbali lahaayeen in ay aqoonsadaan Somaliland maadaama ay dal gaar ah ahaan jirtay markii ay la midowday dalka Soomaaliya. madaxweynuhu waxa uu sheegay aqoonsiga Somaliland inay ku xiran tahay oo kaliya wadanka ugu horeynaya ee aqoonsanaya Somaliland ku doonaba ha noqdee kadibna caalamka inta kale ay ku wada xigi doonaan. mar wax laga weydiiyay su'aasha ah in uu Mareykanku aqoonsanayo Somaliland waxa uu sheegay in Mareykanka iyo Somaliland ay imika aad isugu fiican yihiin isla markaana ay tahay markii ugu fiicneed ee aad isugu soo dhawaadaan intii ay Somaliland jirtay. waayo buu yiri waxa jirta in Berbera ay ku taalo dekada Berbera ee Somaliland ay ku taalo meel istiraatiijig ah oo Gulf of Aden ah. kadibna baahi weyn loo qabo in halkaasi uu Mareykanku uu ka dhisto saldhig military taas oo ka caawinaysa ilaalinta badda cas iyo badda Gulf of Aden. dhinaca kale madaxweyne Cirro waxa uu yiri waxaanu saaxiib ku nahay Mareykanka ilaalinta amniga, waxaanu saaxiib ku nahay ilaalinta marinbiyeedyada badda ee ganacsiga adduunku maro, waxa kale oo aanu saaxiib ku nahay la dagaalanka argagixisada. waa hadalka soo u dhigay. waxa kale uu sheegay in cilaaqaadka Mareykanka iyo Somaliland uu sii adkaanayay. dhawaana waxa uu yiri waxa noo yimi oo nagu soo booqday Hargeysa taliyaha ugu sareeya ciidanka Mareykanka ee bariga Afrika hogaamiya. sidoo kale waxa 3 goor na soo booqday safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya ee Muqdisho jooga. waxa kale uu sheegay in ay wafdi kale oo officials ay soo diri doonaan Mareykanku kuwaas oo qiimeyn ku sameyn doona dekada Berbera. dhinaca kale jiradu waxa ay sheegtay in maraakiibta dagaalka ee xambaara diyaaradaha dagaalka ayaa isticmaalay badda Somaliland markii ay weerarayeen Xuutiyiinta bishii Abriil. jiradu waxa kale oo sheegtay in wax xiriir caalami ah oo rasmi ah oo Mareykanka iyo Somaliland ka dhaxeeya aanu jirin balse uu jiro xiriir hoose oo ka dhaxeeya labadooda. hase ahaatee waxa kale oo jiradu soo shaabixisay khilaafka ka dhex taagan tiimka Trump dhexdiisa oo qaybina aaminsan tahay in la ictiraafo Somaliland qaybina ay doonayaan in aan la ictiraafin taas oo ay isku khilaafsan yihiin tiimka dhexdiisu. tiimka aaminsan Somaliland in la aqoonsado ayaa iyagu waxay aaminsan yihiin in la gaaray xilligii la aqoonsan lahaa Somaliland isla markaana ay khaatiyaan ka taagan yihiin dawlad Soomaaliyeed oo rasmi ah oo dhalata oo nabada oo amni ku shaqeysa. sidaa daraadeedna loo baahan yahay in Mareykanku uu bolisigiisa ku aadan Soomaaliya wax ka bedelo. dhinaca kale madaxweyne Cirro waxa uu sheegay in ay dhici doonto Mareykanka oo kaliya maaha iyo wadamo kale oo iyagana oo partner la Mareykanku inay sidoo kale iyaguna qaadan doonaan. jiradu waxa kale soo qaadatay oo ka hadashay heshiiskii MOU-ga ay wada galeen Somaliland iyo Ethiopia kaas oo ay ku sheegeen in Ethiopia ay si dhab ah ay u doonaysay inay ka hesho marinbiyad Somaliland. hase ahaatee heshiiskaasi ma uu noqon mid hirgala ayay tiri jiradu taasoo Somaliland ay kaga bedelanaysay aqoonsi caalamiya inay noqoto hormud Ethiopia. jiradu waxa tiri waxa kale oo arinta aqoonsiga Somaliland sii horeeyay arinta Palestine oo iyagu la doonayay in loo soo barakiciyo Somaliland. arintaas oo aqoonsi
caalamiya u keeni lahayd Somaliland haddii ay dhici lahayd. waxa kale oo cajiib ahayd oo Jaruud sheegtay in qaxooti Falastiiniina ay joogaan ay degan yihiin Somaliland tiradooduna dhan tahay ilaa 12 qoys. Jaruud waxa kale soo qaadatay waraysi ay la yeelatay wasiirka hore difaaca dalka Britain Gavin Williamson oo ah saaxiib aad u dhow oo Somaliland aad ula shaqeeya kana shaqeeya aqoonsiga Somaliland in uu sheegay in uu la hadlay xubno muhiim ah oo ka tirsan dalka Mareykanka isla markaana ay u xaqiijiyeen in Somaliland la aqoonsan doono. waa hadalka soo yidhi warbixintan oo aad u xiiso badneyd ayaa waxa ay noqotay mid aad soo jiidata dhammaan shacabka Somaliland ee xiiseeya aqoonsiga Somaliland. madaxweynaha Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa booqashadii uu ku joogay dalka Kenya waxa uu maanta soo booqday baarlamaanka dalka Kenya halkaasi oo lagu soo dhaweeyay si heer sare ah isaga iyo waftigiisiiba. waxa ay la kulmeen gudoomiyaha baarlamaanka mudane Moses Mosika oo halkaasi ku soo dhaweeyay si diiran. waxa uu tusay baarlamaanka gudihiisa waxa ayna ka wada hadleen horumarinta dimuqraadiyadda iyo cilaaqaadka labada baarlamaan ee Somaliland iyo Kenya sidii loo sii xoojin lahaa. shalay ayay ahayd markii uu la kulmay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto madaxweynaha Somaliland isla markaana si diiran ugu soo dhaweeyay madaxtooyada dalka Kenya. dhinaca kale dowladda Kenya ayaa iyadu qaaday talaabooyin ay ku sii xoojinayso xiriirka ka dhaxeeya Somaliland iyo Kenya. talaabooyinkaasi waxaa ka mid ah wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya website-keeda ay ku leedahay barta internetka waxa ay ku dartay xafiiska Somaliland ee diblomaasiyadda ee hadda uu xarga ka jaray madaxweynaha Somaliland isla markaana waxa ay u tixgeliyeen sidii dal ay aqoonsan yihiin oo kale isla markaana waxa ay liiska ugu dareen magaca ah Republic of Somaliland iyadoo ay isku xigaan dalka Soomaaliya. sidaad ka aragtaan fiidiyogan hadda idin muuqda Somaliland waxa ay ku jirtaa liiska lambarka 20aad halka dawladda Soomaaliya ay ku jirto liiska 19aad. arrintan ayaa la oran karaa waa guul u soo hoyatay dawladda Somaliland maadaama ay maalmihii soo dhaafay ay gashay khaladaad diblomaasiyadeed. warkeenina inta ayuu naga dhan yahay maanta.